Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kusoo dhawaada kanaalkeena Som Universe. Ramadaan Kariim, Ramadaan Mubaarak. Mawduuceena maanta waxaan kusoo qaadan doonaa taariikh kooban oo ku saabsan dalka Singapore. Dalka Singapore wuxuu leeyahay taariikh hodan ah oo soo taxnayd qarniyo badan. Waqtigii hore ama qarnigii 13aad ilaa iyo inta u dhaxaysay qarnigii 19aad, Singapore waxay markii hore ahayd jasiirad yar oo ganacsi ah oo loo yaqaano Temasek, taas oo micnaheedu yahay magaalada biyaha. Qarnigii 14aad waxay ahayd meel muhiim ah oo ka tirsan boqortooyada Srivijaya oo ka jirtay koonfur bari Aasiya. Magaca Singapore wuxuu ka yimid eray Singa iyo Bora oo la macno ah magaalada libaaxa, Lion City, wuxuuna la xiriiraa ahliyey sheegaya in boqor ah uu arkay libaax markii uu yimid jasiiradan. Gumeysiga Ingiriiska 1819 ilaa iyo 1942 sanadii 1819 Sir Stamford Raffles oo Ingiriis u dhashay ayaa aasaasay saldhig ganacsi oo Ingiriiska u adeegi jiray, taasoo ka dhigtay Singapore xarun muhiim ah oo ganacsi ah. Sanadii 1824 Singapore waxay si rasmi ah u hoos tagtay Ingiriiska dagaalkii labaad ee adduunka 1942 ilaa 1945. intii uu socday dagaalkii labaad ee adduunka, Japan ayaa qabsatay Singapore sanadkii 1942 waxayna xukumayeen ilaa 1945, markaasoo Ingiriiska dib u qabsaday mar kale. Xornimo raadintii Singapore waxay u dhaxaysay sanadii 1959 ilaa iyo inta u dhaxaysay sanadii 1965. Singapore waxay heshay xukun hoosaad ah sanadii 1959 waxayna noqotay mid ka mid ah gobollada isbahaysiga Malaysia sanadkii 1963. Si kastaba ha ahaatee, xiriirka Singapore iyo Malaysia wuu xumaaday waxaana Singapore si rasmi ah uga go'day Malaysia sanadii 1965 iyada oo noqotay dal madax bannaan. Horumarka cusub 1965 ilaa hadda kadib madax bannaanida Singapore waxay la kulantay horumaro waaweyn oo dhaqaale iyo magaalo weyn oo dib-u-dhis badan lagu sameeyay. Lee Kuan Yew oo ah ra'iisul wasaarihii ugu horreeyay wuxuuna door muhiim ah ka qaatay dhisidda Singapore casri ah, wuxuuna ka dhigay mid ka mid ah dalalka ugu horumarsan caalamka. Waa mid haatan u horseeday in Singapore ay noqoto dalka baasaboorkeedu number 1 ka dunida, waa dalka baasaboorkeedu ugu tayada caalamka. Waxa kale oo muhiim ah caasimadda Singapore waxaa lagu magacaabaa Singapore City. Luqadda rasmiga ah ee loo hadlo waa Ingiriis iyo Malay iyo Mandarin iyo Tamil. Lacagta rasmiga laga isticmaalo waxaa la yiraahdaa Singapore dollars. Xornimadan waxay qaateen sanad 9 Agoosto 1965. mawduuceeni koobnaa ee ku saabsanaa taariikhda kooban ee dalka Singapore halkaas ayaan kusoo gabagabaynaynaa. Haddii aad ka xiisaynayso mawduuc noocyadan oo kale ah, fadlan faalada hoos nagala wadaag aragtidaada. Waan mahadsantahay.